asxaabta waa idin jeeda aad iyo aad sii shargareeya barnaamijkan uu gaarsiiya oo ku shargareeya gruubyada insha Allah waxaan rabaa xog xasaasi ah oo aad iyo aad u muhiim ah inaan idinkugu soo gudbiyo halkan marka waxaa idinka codsanaya inaad sii shargareysan ku shargareysan gruubyada waxaan u soo galay si degdeg ah inaan idinkaga akhbaar bixiyo xaaladda saxda ah iyo sida ciwaanka ku soo aragteen hadduu alid insha Allah marka waxaa idinka codsanaya inaad sii shargareysaan walaalaha qaaliga aad u mahadsantihiin inta halkan ku jirto marka waxay idinka codsanaya inaad sii shargareysaan akhyaarta xog xasaasi ah idin haya laba arrinba waa u soo gala halkan inaan idinkala hadlo du'aalid insha Allah oo aan idinkugu sheego madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sharciyad ma u haystaa in uu qaato mushaarka dowladda calashaan mushaarka madaxweynenimada waxaan rabaa inaan su-aashaasi oo calashaan dadka qaar ay la wareegayaan ayaan rabaa inaan inta kugu iftiimiyo jawaabta saxda ee ku habboon ama dastuurka uu qorayo inaan inta kula wadaago hadduu alid insha Allah marka aqyaarta sii shargareeya dhammaantiin aad u mahadsantihiin ku shargareeya gruubyada si aan xogta saxda idinkugu soo gudbiyo hadduu alid insha Allah mar kale waa salaamantiin aqyaarta waa idin salaamaya marka barnaamijka sii shargareeya aqyaarta aad u mahadsantihiin waa idinla socdaa sii shargareeya aqyaarta xog xasaasi aan rabaa inaan idinla wadaago hadduu alid insha Allah hala sii shargareeya aqyaarta aad u mahadsantihiin dadka dhan noo soo wada dhoobtaa inta si aan xogta saxda idinkugu gudbiyo halkan insha Allah hadduu alidmo okay aqyaarta waa ujeedaa waa gacan culustihiin laakiin insha Allah idiin soo gudbina xogtiina horta waxaan usoo galay wax kale ma ahan laba arrinba inaan ka hadlaan usoo galay oo degdeg ah arrinta koowaad waxay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sharciyad ma u haystaa in uu qaato mushaarka calashaan dowladda calashaan mushaarka madaxtinimada dalka labo ragga qaar ee musharaxiinta dowladda federaalka ee maanta isku dayaya inay u tartamaan ayaa maantay muujinayo habacsanaan aad iyo aad u weyn weliba ay ka muujinayaan habka ay maanta doorashada u socoto waa la yaab taasi waxaan rabaa inaan inta kugu faahfaahiyo oo aan si sax kugu soo gudbiyo marka ugu horeyn horta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa caawadan soo hadlay kana hadlay xabaaraha dalka ka taagan maantay wuxuu sidoo kaleeta qayb ka qaatay in mushaarkiisa qayb ka mid ah oo ku bixiyo oo siiyo dadka abaaraha ay saameysay marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan oo calashaan ugu damqanayo dadkiisa iyo wadanka xukunka uu hayo dadkiisa marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu maanta ka qayb qaadanayo dowladnimadiisa weliba naxariistiisa qayb ka mid ah maanta inuu muujinayo sidaan hore idinkugu sheegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa qof u damqado dowladnimadiisa iyo daljaceelnimadiisa weliba nin qarya ma ahane banaanka ayuu keenaa marka waa wax aad iyo aad dadka inta ugu badan aanan laga helin laakiin dadka dhif ayaa laga hela arrinkaasi marka waxaan rabaa inaan kuu sheego mala socotaa 2011 ilaa 2012 in madaxweynihii xilligaasi xukunka joogay ee Shariif Sheekh Axmed oo dalka ka talinaya xilligaas oo ahay madaxweynaha dalka wuxuu ku darsaday hal sano oo weliba ay ka soo shaqeysay Uganda ayaa lagu darsaday dowladnimada Soomaaliya xoog loogu sheegtay maadaama sida taa ay ku dhacday waxa lagu darsaday oo awood lagu sheegtay in dowladnimada xoog lagu sii joogo su'aasha isweydiinta badan waxay tahay haddii oo ninkaas xataa wuxuu ahay kumeel gaar ayuu ahay gaarsiiyeen uu ahay transition ayuu ahay sida sax markaa ka hadlo saasoo ay tahay xoog ayuu intuu ku darsaday ayuu wuxuu yiri xukunka anaa iska leh cid ila Allah ma jirto marka hal sana ayuu ku darsaday
wuxuu qaadanayay mushaarka madaxweynaha oo qaata ayuu qaadanayay. sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan kuu sheego xasan sheekh maxamuud dalkani ayuu wuxuu ku ahay madaxweyne, wuxuu ku darsaday 6 bilood oo awood ah. waxaana la socotaa oo aan xalay kugu soo gudbiyay in 25 November ee shalay ku beegneed in dalka doorasho aysan meel ay u socoto aan la aqoon in uu joogay oo madaxweyne ka ahay xasan sheekh maxamuud. mushaarka madaxweynaha qaadanaya xilligaasi waa hadda mushaarka madaxweynaha ayuu qaadanaya xilligaasi xasan sheekh maxamuud iyadoon waxba aysan ka go'in. okay aan u soo gudubna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kaleeto wuxuu waqtigiisa dhamaaday 8 February ilaa xilligan aad aragtaan wuu joogaa. you know why aan ku sheego sababtu waxay tahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay inuu sadicin firaaq dastuuri ah. وهذا فراق دستوري madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kuma uu sadarsanin waa laga diiday asagoo rabo dalka inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah ayaa la diiday. saaso ay taa wali waxay taagan yahay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo u taagan yahay madaxweynenimada dalka Soomaaliya. waa hadda mid saxda ah aan u baahnayn in la qarqariyo oo dadka aan laga qarin. okay aan u soo daadega marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dastuurka ayaa u ogolaaday una ogolaanayo inuu sadicin dastuur firaaqi ah in dalka uusan ka dhicin xilka madaxweynaha uu sii joogi doono. sida taa ay baarlamaanka ansixiyeen 2020 ilaa iyo waxa u maleynaa xilligii xasan maxamuud oo soo ansixiyeen xilligan oo hadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo joogani wuu soo ansixiyay baarlamaanka. isaga shaqo kuma lahan, isaga wuxuu u taagan yahay in uu dalka gaarsiiyo xilligii doorashada saxda. tan xitaan ku sheega waxay tahay baarlamaanka hadda joogo ilaa laga soo dhaariyo baarlamaan cusub waa ilaa laga soo dhaariyo baarlamaan cusub mushaarkiisa joogto ayuu u qaadanaya. maalinta la dhaariyo baarlamaanka cusub ee dalka soo galayo ayay mushaarkoodii halkaasi ku eg tahay. saas oo la soco howshu haddaad ka dhacsan tahay tan ayaan kugu soo gudbinayaa ee ogsoonow. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo baarlamaanka ayaa u ogolaaday dastuurka sidaasoo dastuur firaaqi oo u dhicin ayuu dalka kusii joogayaa. wuu sharciyeysan yahay. hadduusan sharciyeysnayn oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ahayn madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud wuxuu qaadan lahay mushaarka madaxweynenimada inta uu qaadanaya ayuu qaadan lahay. shariif wuxuu ahay madaxweynaha kasoo gudbiyey xaalad adag wadanka wuxuu qaadan lahay xilka madaxweynenimada lacagta oo qaato mushaarniman ayuu qaadan lahay. haddii uu jiro madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud dalka ka tali lahay. marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maadaama xasan sheekh maxamuud oo ahay madaxweyne hore maxaa u diiday inuu filla Soomaaliya galo awood ku qabsado isagaad u aragtaan qofka uu yahay iyo shakhsiyan cidda uu yahay. waa hadda qofka uu yahay iyo shakhsiyan cidda uu yahay aad aragtaan xasan sheekh maxamuud madaxweyne hore waaye maxaa u diiday inuu qaato mushaarkii madaxweynenimada uu qaadan jiray. maxaa u diiday inuu filla Soomaaliya galo. waa su-aasha isweydiinta mudan ee jawaabtu ku haboon ayay halkaasi tahay. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu mushaar qaatane dastuurka ayaa u siinayo inuu dalkani sii joogo oo madaxweyne sii ahaado ilaa madaxweyne kale ka imaanayo isaga ayaa madaxweyne ahaanayo oo baarlamaanka ayaa ansixiyay. sharciyan ayuu u haystaa. haddoosan sharciyan u haysanin maanta safiir wadankan inta imaado madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo filla Soomaali uguma tageen warqada ayna guddoonsiinayo madaxweynahane lama siiyana waxaa la oran lahay dalka madaxweyne ma lahan safiirna ma imaan karo cidna ma imaan karta ayaa la oran lahay. laakiin that is finish waa dhamaatay. adeer MBB mooryaanta baraha bulshada maanta waxay faafinayaan hadal aan lahayn raad ama meel loo raac aan lahayn. hadalkooda ayaa isburinayo. wuxuu isku burinayaa waxay tahay haddii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo yahay madaxweynihii hore ee dalka waqtigiisana dhamaaday xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed waxay qaadan lahaayeen mushaar la mid ah mushaarka oo qaato madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. laakiin dastuurka ayaana siinaynin
dastuurka ayaanan u ogolaanaynin laakiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dastuurka ayaa u ogolaanayo sidoo kaleeto baarlamaanka ayaa u ansixiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu dalkan sii joogi doono ilaa laga keeno madaxweyne laga dhaariyo wadankan oo ka noqdo madaxweyne rasmi ah ee 4 sano xilkaasi sii joogi doono ilaa laga keenayane cid meel u dhaqaaqayso isbedelayso haba yaraatee ma jirto mucaaradka waxay hore u sheegeen ee hore ugu hanjabeen horena u sheegeen in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo yahay madaxweynihii xilkiisa dhammaaday filla Soomaaliya oo ku jiri karin February waxaa ka soo wareegsatay ku dhawaad bishii labaad waa bishii waxaan ku guda jirnaa hadda sii galaynaa bishii 12aad ayaan galaynaa ku dhawaad in ku dhow 10 bilood ayuu xafiiska joogaa maamulkeeda ayuu hayaa doorasho ayuu dalkana maanta sii gaarsiinayaa halkaasi waxaan uga gudbaynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha xilgaarsiinta ah ilaa laga helayo madaxweyne cusub intaasi wuxuu qaadanayaa mushaarkii ku filneed ee madaxweynenimo la sii jiray okay baarlamaanka maanta jooga wuxuu qaataa mushaarkii oo qaadanayay intuu xilligii 4 sano oo qaadan jira ayuu qaataa baarlamaana maanta la doorto wahda fiiri baarlamaan ayaa la dooranayaa su'aashaasi waxaad weydiisaan xildhibaanada kamid ah mucaaradka weydiiya maxaad lacagta u qaadataan dhaha su'aashaas jawaabteeda iyaga kaad ka heli doontaan maxaad madaxweynaha u ordaysaan madaxweynaha waa madaxweyne qaran madaxweynaha waa madaxweyne sharafsan sharaf ayuu leeyahay ciise iyo karaama ayuu naga mudan yahay maanta wuxuu ka duwan yahay raggii dalkeena hore u soo maray waa madaxweynaha kaliya ee hantida shacabka sugay sida ay tahayna ku maamulay waa madaxweynaha kaliya laga helo Soomaaliya ninka kaliya cadaalad falay ayuu noqday cid kale oo maantay bedelayso oo ka wanaagsan hadii ay jirtana inaad noo keenan dhaha waxa tiraahdaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo nin ka wanaagsan ayaa keenay nin ka hooseeya hanoo keenina ilaahay ka baqa runta ka hadlayna moqt anaka dhinac kale ma aadino ragga waxaan ka hadlaa waxay tahay mucaaradka hadda maanta bahashan buunbuunina warqadan wareejinaya ah muxuu mushaarka u qaadanayaa waxaad weydiisaan xildhibaanada kamidka ah isla mucaaradka oo kamid yahay mahasalaad oo kamid yahay ninka musharaxnimada isku soo sharxay ee madaxweynimada ee xildhibaankan ah ee ku jira maanta mucaaradka su'aashaasi weydiiya isaga idin kaga jawaabayo muxuu u qaataa mushaarkii oo qaadanaya baarlamaankii xilliga 4 sano oo hadda dhamaatay su'aashaas weydiiya halkaas waxaan ugu gudbaynaa inuu yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha kaliya ee si sharciyan ah u qaato mushaarkiisa dastuurka ayaana u ogolaaday una ogolaa doono weligiisna u ogolaa doona madaxweyne kastana wuu qaadanayaa madaxweyne kasta ilaa laga dhaarinayo madaxweyne kaleetana wuu qaadanaa xasan sheekh maxamuud nadarto bilcayn ayeen u ahayn wuu qaadanayay wuu taagnaay 6 bilood oo xoog ugu darsaday wuu qaadanayay su'aashaas marka asaga ku haboonay weydiiya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo masaakiin ayuu caawinayaa xilligan masaakiin ayaa la caawinayaa ee lama caawinayo munaafiqiin lama caawinayo xilligan haddii mucaarado idinka aadan caawininin oo aadan qayb ka ahayn inaad caawisaan masaakiintaasi madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ha caawiyo maxaa idinka galay idinka mushaarkiisa ayaa ku filan maanta iyo ducadiina ayaa ku filan maanta in dalkeenu abaaraha uu ku jiro oo ka baxo hal nin oo mucaarad kamid ah oo u damqanayo ma jiro hal nin oo maanta ka damqanayo maatidaas dhibaatoonayso ma jiro sidee kursi lagu raadiyaa war kursi waxa laga raadiyaa shacabka ayaa laga raadiyaa war kursi waxa laga raadiyaa shacabkina wax u qabato kursi waxa laga raadiyaa dalkaagina wax u qabato kursi waxaad ku raadisaa nidaam ka wanaagsan oo nidaamka ku socoto kursi laguma raadiyo dhiig la daasho kursi laguma raadiyo in hanti shacab la boobo kursi laguma raadiyo in dad masaakiin ah la diido kursi laguma raadiyo masaakiin wax loo qaybin lahay inaad lacagtooda ka dhacdo oo aad guryo ku dhisato laguma raadiyo kursi waxa lagu raadiyaa wadada wanaagsan laakiin dalkeena maanta wuxuu ku jiraa kursi waxaan ku soo baxnaa la yiraahdo doorasho dadban micnaheedana waxay tahay xaraan dadban hadda xaraanti saxda ah taqaan ma ahane xaraan dadban ayaa la yiraahdaa doorashadan
aqligaaga meel laga geeyo ma naqaane doorashadan waxaa la yidhahdaa doorasho dadban waa xaaraan dadban inaad ar halkaas markaan uga gudbo qodobkaasi aan usoo daadego ragga musharaxiinta ka mid ah oo maantay cabaadkooda baxayo calaacalkooda calashaan socdo dhammaantiina sheergaray akhyaarta waxaan rabnaa inaan dad badan arinteena saxda u gudbino si sheergaray barnaamijkan sidoo kale waxaan idinka codsanaya inaad beejkan follow gareysaan oo aad laagareyso gambaleelkana furato habeen kasta haddii xog cusub soo dhacdo waan kula wadaagayaa hadal kasta iyo nidaam kasta qaabka ugu habboontaani waan kugu gudbinayaa adigana xaqaagan kaa helo sababta xaq ayaan kugu leeyahay xog saxan ayaan kuusoo gudbinaya okay nin la yiraahdo aan ku tilmaamay Cabdiraxmaan Cabdishakuur horta runtii calaacal ma daayo ma hurdo ma gamco I don't know marka wuxuu u baahan yahay I don't know marka jawaabta saxda ah maadaama la siiyay wuxuu hadda kadib raadinayo ma garanayo aniga fahmi ninkaani wuxuu ku haboon yahay in jawaabtiisa dadka kale ay siiyaan sida anaka kaleeto oo alashaan ah wadaniyiinta Soomaaliyeed in ay siiyaan jawaabta ku habooneed ninkan sababtu waxay tahay maalin kasta wuxuu ku jiraa calaacal boggiisa wuxuu ku soo qoray eedeen oo eedeenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yiri Farmaajo intuu xilka sharciga hayay waxa la qabto dhaay 3 doorasho ayaa la qabtay midna laguma tartamin sidoo kale wuxuu dhaatay aqalka sarane tartanka aqalka sarane kama dhicin tirakoob ma ahane tan haatan bilaabatay tartan kama jiro haddaba sideen ku aaminaa oo doorasho madaxweyne lagu tartamayo madaxweyne Farmaajo doorasho ma hayo madaxweyne Farmaajo doorasho gacantiisa kuma hayo yes iska ka darsamin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudiga doorashada ergada dadka nabadoonada ergada soo xulinayso ha isku qaldin madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed kaliya doorashadii xaaraanta ee idinka dalbateen ayuu mar labaad ku soo bixi doonaa horena ugu soo baxay doorashadii xaaraanta ee haddana mar labaad doorashadii xaaraanteena u soconaa maxaa la qalqarinaadar doorasho xaaraan ah haddana xaaraantii wixii kala taalabo midna toosan midna qaloocan ay kala yihiin tani waa mid qaloocaneed xaaraantii dadbaneed oo lagu ku jirto waay daadadii sool maxaa muruq keenayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorasho gacantiisa kuma hayo ko isaga ma maamulo adiga shala gacantiisa ka bixi qori u soo qaatay ma yeelin adiga shala ka dooday maanta wuxuu taagan yahay doorashadii dadbaneed in la qabto ayuu maanta u taagan yahay tan xigta waxay tahay wuxuu dhahay hadii jawaari loo diiday wuxuu dhahay hadii jawaari loo diido dhahay shahaadada musharaxnimada maxaa anaga alshaan tartan xildhibaannimo sideen anigu marka u tartamna inaan u tartamno madaxweynenimo sideen ku qaataa oo shahaadada madaxweynenimada okay hadalka marka inta waxay idinkaga aqrinaa wuxuu dhahay hadii jawaari loo diido shahaadada tartanka xildhibaannimo sideen aniga madaxtinimada tartanka madaxweynenimada ku helaa shahaadadaasi aan ku sheego jawaari wuxuu ku doodayay waxay ahayd kursiga aniga hal ii xiro jawaari wuxuu ku doodayay waxay ahayd kursiga aniga hal ii xiro cida aniga ahayn ma tartamayso jawaari saasoo ku doodayay shalay adi maxaa ku dooday marka fiiri wuxuu markaani ku qanacsan yahay oo ku aniga dadka waxay nooga dhigaan moogta wax dadban ama wax gadaal ay nooga dhigaan hadda waayuu ugu ogolaaday oo ugu ogol yahay inuu ninkan shahaado qaato waana diidantiin doorasho dadban ninkan sababtu shahaado ku qaadanaya maxay tahay waxaan aqliga dabaalka maxay tahay dadka qaar waa dabaalo xilna aqli uma lahan in dad hogaamiye iska daay nafsadiisa ma hogaami karo waa nafsadiisa halka shakhsi ah ma hogaami karo sidoo ku hogaamina 20 milyan ka badan dad ah sidoo dad wax ugu sheegi doona maanta sidoo codkarnimada wax ugu sheegi doona inaad qof ayso maalin kasta qof aad ku dhagan tahay war ma ahane adar meeshan kala dultag meeshan waa doorasho ayaa la aaday dadban doorashadii xaaraanta ee dadbanne adar qaada ama ka tag intaas waa that's all halkaas aan u gudbo hadalkaasi wuxuu dhahay hadii Farmaajo horay waxba u xeerin uu laba gudoomiye baarlamaan midna xilka ka tuuray kii kalena filada ka soo ceyrisaday ee ra'iisul wasaaraha midna ka tuuray midna calashaan wuxuu ka hadlaa waxay tahay gudoomiyaasha baarlamaanka ayuu ka hadlayaa wax ka galama laha Farmaajo cidoo doono eraya oo ceerinaya cidoo doono ayuu soo dhaweynaya sababtoo ah isaga ayaa wax magacaabo isaga ayaa wax diido isaga ayaa ah ilaaliyaha dastuurka isaga ah waa astaanti qaranka waayo cidoo u arko inuu xun yahay wuu bedela
ورمانتي وزير محمد عبد الساق يا كون أحسن إيش شيء حلك ولا بدلي يا لو بدلي waxaa laga yaabaa maanta ninka hadda la soo bedelay inuu ka wanaagsanaado maanta wuxuu fiirin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu ku xisaabtamaa ninka maanta ku joogo nin ka wanaagsan keen hadda ninkan uu wanaagsan yahay nin ka wanaagsan keen ayuu ku jira muxuu ku jira degdeg ayuu ku jira oo ah dalkan sidee ku gaarsiinaa in maanta wada shaqeyn buuxda ee ka dhacdo sidee lagu gaarsiin karaa sidee ku noqon kartaa dawlad maanta wada shaqeyn ka wada socoto sidee ku noqon kartaa kuma noqoto adeerow hebel shal waxaad leedahay Cabdiraxmaan oo qorqoro shal u qeylinaysa waxaad leedahay qorqoro maanta sida aragtana loo dhigay calasha adigoo qore qaatad qorqoro u cabaadaysa qabiilad u yeereysay hirshabeelad u yeertay gudoomiyaha gobolkaad u yeereysay ra'iisul wasaaraha ayaa u yeereysay halkee marka adigoo qabiil raadinayo oo isla ninkan wax ka hel ayaad u cabaadaysa shalay yaan kugu aaminaa naftaada kuuguma aaminee taadaad u baahan tahay waardi in laga qabto oo lagu ilaasho lagu tirtiro lagu dhaho raali noqo joog in lagu dhaho ayaaba mudan tahaba sababtoo ah taadaaba daryeelada Soomaali waxay tiri tiisa daryeelato kala daryeeli karo okay waxa waaye ninka eedeyntiisa iyo calaalkiisa iyo waxa waaye farmaajo lagu calaacalo doorasho ma soo celinayo farmaajo lagu calalo doorasho gacantiisa kuma soo laabto shalo wuxuu ogolaay doorasho oo qof iyo cod ah in la aado hadad ku qanacsan tahay imaado ku dhahay hadad ku qanacsanay sheega waxa tirada ma rabno qorayaan ka qaadanayna waxaan rabnaa doorasho dadban sababta doorashadii qof iyo cod ahayd waa nooga adkaanaysa ee doorasho dadban ayaa rabnaa halkaas shala taagneed halkaas ayaad ka cabaadaysay halkaas shala maantay halkaas adoo taagnaay aan waliba xataa waxaan kalsooni ku niraanay diyaar waan aadinahay adigana diyaar soo noqo diyaaran kula nahay anakana diyaar doorashadii waxa loo dhiibay ra'iisul wasaaraha sidiis ay soo u wado oo wuxuu ku wareejiyay gudiga doorashada wuxuu si ugu wareejiyay isla nabadoonadii kursigaas lahayd marka professor Jawaarina nin weyn waa aqoon ayuu leeyahay cilmi ayuu leeyahay uma diidani taas laakiin kursiga hal ii xiro ma ahan tartan adar war Muuse Suudi aan aqoon lahayn cilmi aan lahayn tartan adigana maxaa ku diid adoo aqoon dadna hogaami karo ayaad tartami kartaa nin rag iska dhig war Muuse Suudiyaad aqoon iyo cilmi iyo maadi wuxuu ku hogaamiye lahayn ayaa wuxuu yiri am hal doorto am yaan la dooran anigu waa tartamay doorta am iska keedaaya woona tartamay waa ku faraxsanahay Muuse Suudi habka ku tartamay asoon cilmi iyo awood aan lahayn inuu maanta doorasho ka soo qaato reerkiisa adeero Jawaariyow aqoon iyo cilmi Ilaahay ku siistay hogaamin wanaagsan Ilaahay ku siistay tag reerkaaga waxa tiraahdaa haye yaa ila tartamaayo hebel ila tartamaayo haye diyaar ay soo fariiso waan kula tartamaa aniga waxaan soo qabtay hadda wax soo qabatay isku kalsoonaaw tartan inaad xoogaaga muuji shahaadada waa qaadanaysa shahaada qaadata adaa waxa yiri kursiga hal ii xira ama doorashada ma ka qayb galay calashan waxa iska dhigtay laadar iska dhigtay hadda laadar iska dhigto laadar kala jiro wiil yar waxa soo baxay cilmi aqoon leh waad gabowday ka fadhiiso doorashada shaqo kuma lihid dad kale ayaa shaqo ku leh adii shaqo kuma lihid dhalinyar ayaa soo baxday dhalintaas ayaa wax ka qabanayso dalka maanta wax ka qabanayso waa doorasho dad badan ka cabaaday oo aad shalay 12 sano 20 sano ugu dambeysay aad ku fadhiisay ayaad ka cabaadaysaa kuma kalsoonin sadaada ee qof kale neefadiisa ayaa ku kalsoon tahay waxaan ka dayno dalka maanta mid kaleeto oo aan halkaas ina ugu gudbaan jeclaan qodobkaasi kuma fogaanayo oo Jawaari ah waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo oo aan hadalkayga mar raba inaan caawa barnaamijka dheereeyo oo waa islaahay hal saac ku jir laakiin umaleyn ma inaan ku sii jiri karo sababtoo aad aan daalanahay marka waxaan rabaa inaan idinku soo gabagabeeyo idinkoo mahadsan oo aad iyo aad u mahadsan waxaan idinka codsanayaa masaakiintaasi haddaadan lacag awoodin haddaadan wax awoodin kaliya u duceey salaada markaa tukato salaada dabadeed u duceey in Ilaahay roob u soo daayo calashan abaarta ay ku jiraan ay ka baxaan kaliya intaas ay ka mudan yihiin nin muslim ayaa tahay waa salaada shanta salaad ayaa tukataa waad cibaadeysataa kaliya muhiim ma ahan inaad lacag dhiibto adar
muhiim ma ahan inaad tiraahdo lacagaan soo diraa muhiim ma ahan muhiimadda adiga maanta ku haysata waxay tahay haddaad awoodin inaad $20 dhiibato waxaad dhiibataa ducadaada 5 salaad tuko ilaahay bari u ducay masaakiinta abaarta haysato maanta baaba'ayso qiyaas hal maalin aad sooman tahay aad dareemaysaa baahi too much laakiin ma ka fakarta dadka masaakiinta ah ee maanta biyaha aan haysan cuntada aan haysan abaar ku dhex jiraan dhibaatada aragtan ku dhex jiraan marka aan ka faa'iideysano waa xilliga la isku ducay lahay xilligan waa xilligii aan u baahnayn dadka shacabka ah inay isgarab istaagaan ma ahan inaan fiirino shakhsi yaana fiirinay shakhsi madaxweyne farmaajo waa shakhsi midowga musharaxiinta waa shakhsi ragga dowladnimada wada waa shakhsi adiga shakhsi ayaa tahay ka madax banaanaaw ilaahay adigoo ku xisaabinaya ma xisaabina dadkaas kaleeto adiga ayaa lagu xisaabinaya intaa lagu xisaabin isxisaabi oo kaliya ha kaa soo baxdo inaad dadkaas masaakiinta aad u duceyso midda kaleeto oo aan raba inaan gun iyo gumabada kusoo gabay waxay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuu ka guuleystay cid kastoo maantay dowladnimadeena ay ku waday in ay burburiso ama dhibaato u geysato wuxuu ka guuleystay cadowga Soomaaliya ayuu ka guuleystay wuxuuna ugu guuleysanaa sababtaas ma taqaanin waa ducadiina adaryaalo u duceeya duca ayaan idinka rabnaa oo kaliya habaar idinka rabno dhibaato idinka rabno cilad kale idinka rabno kaliya ani duca idinkula garab taaganahay aniga madaxdii waxaan kula garab taaganahay waa duco madaxweyne farmaajo shilay ima siiyo wax ima siiyo waan jeclahay maalmaha kamid ah inaan la kulmo nolosheeda farxadaas maalintaas aan dareemi doono ma qiyaasi karee ha xasuusine marka waxaan jeclaan lahay qof walba saas ayuu jecel yahay aqyaaray saaxiibayaalow aan ka qayb qaadano inaan dalkeena iyo dowladnimadeena u duceyno ninka xilka noo hayo farmaajo waa taga ninka imaada aan u duceyno aan iraano ilaahayow waxa khayrka ah ilaahu xiji waxa dhibaato aan ilaahu ka jeedi ducadaas ayaa naga mudan hadduu alla insha Allah ka sayn kusoo gabagabeynaya aad ayaan idin salaamaya waa idin wada jecelahay dhamaantiinna waxaad ii taabataan like ii taabta ina si shirgareeya barnaamijkayga si habeen kasta aan update idinkaga dhigo aad u mahadsantiin caafimaad badan idin rajeenaya